Assalaamu calaykum dhammaan waan salaamayaa ummadda Soomaaliyeed meel walbay adduunyada ka joogto. Casharkani wuxuu daba socdaa casharkii hore ee ahaa barashada xuruufaha musiga. Haddaad xasuusan karaysaan ama aad dib u eegi karaysaan, waxaan idinkugu sheegay inuu xuruufta musiga la yidhaahdo do, re, mi, fa, so, la, ti, do. oo haddana aada afka laatiinka lagu yidhaahdo c d e f g a b. halkan hadda waxaan idinku tusayaa sawir keyboard ay ku qoran yihiin 12 xaraf ee musiga. marka aan idin leeyahay c d e f g a b, waxa aan idin sheegayo waa 7 xaraf oo quraata. marka musiguna waa 12 xaraf oo waa darsankana waxaa la isku yidhaahdaa octave. marka hadda iyadoo number ahaana waatan number 1ku waa c, number 3gu waa d, number 5ku waa e, number 6ku waa f, number 8ku waa g, number 10ku waa a, number 12kuna waa b. kadib waxaa soo laabanaysa cd. markaan intaa idiin sheegay 7 xaraf baan idiin sheegay, 5 baa maqan. marka 5tu waxay noqonayaan hadda cd oo number 1 ah waxaa ku xigi lahaa so 2 maaha. marka 2da waxaa la odhanayaa waa c sharp. waayo marka xagga cda laga dhaqaaqayo waxaad leedahay waa c sharp. marka laakiin aad xagga 3ga dib uga soo noqonayso oo d ah, 3du waa d. marka aad 3da kasoo noqonaysana waxaad leedahay waa d flat. haddaan sii socno de d-da iyo e-dana mid kalaa udhexeeya oo d-du waa number 3, e-duna waa number 5, laakiin number 4 baa maqan. marka waxaad leedahay d sharp buu noqonayaa number 4ku ama e flat. waxaa ku xiga waa 5tii iyo 6dii oo ah e iyo f. e iyo f-ta waxba uma dhexeeyaan. haddana waxaa imaanaysaa ft oo 6 iyo g-dii oo 8 waxaa u dhexeeya number 7. marka waxaad leedahay f2 marka laga soo dhaqaaqayo aad xagga aad 6 kasoo dhaqaaqayso 7 u dhaqaaqayso waxaad leedahay waa f sharp. laakiin markaad xagga g-da kasoo dhaqaaqaysana waxaad leedahay waa g flat number 7ku. waa sidoo kale g-dii iyo a-diina mid baa u dhexeeya. xagga g-ga laga dhaqaaqayo oo 8 oo xagga 9ka loo dhaqaaqayo waa g sharp. laakiin marka xagga 10ka laga soo dhaqaaqayo oo a ah wuxuu noqonayaa a flat. a-dii iyo b-diina mid baa u dhexeeya oo ah 10kii oo a-ya iyo 12kii oo b-ya. marka 10ka laga dhaqaaqayo xagga loo dhaqaaqayna waxaa leedahay waa a sharp. laakiin markaad xagga 2 alif kasoo dhaqaaqayso oo b ah ood 11 kusoo noqonaysana waxaad leedahay waa b flat. b-dana waxaa kusoo xiga c. c-da iyo b-dana waxba uma dhexeeyaan. hadda keyboardkii waa kan waa c d e f g a b. bal eeg b-da iyo c-da waxba uma dhexeeyaan, e-da iyo f-tana waxba uma dhexeeyaan. inta kale waxaa u dhexeeya note. markaan idin tusa graph ahaan, hadda graafkan wuxuu kutusayaa si isugu xigaan xarfihii. waa a iyo b-dii mid baa u dhexeeya oo ah a sharp ama b flat. b-dii iyo c-dii waxba uma dhexeeyaan. c-dii iyo d-dii waxaa u dhexeeya c sharp iyo d flat. d-dii iyo e-diina waxaa u dhexeeya d flat iyo e flat. d sharp sorry iyo e flat. e-dii iyo f-tii waxba uma dhexeeyaan. f-tii iyo g-dii waxaa u dhexeeya f sharp iyo g flat. g-dii iyo a-diina waxaa u dhexeeya g sharp iyo a flat. taana waa marka aan xuruuftii loo sheegayo. laakiin gitaarka marka la leeyahay, gitaarka xuruufaha wuxuu ugu jiraan gitaarka xarfaha waxaa lagu sameeyaa gacanta bidix luqunta baad samaysa. gitaarka wuxuu leeyahay strings ama xargo. marka notiska gitaarka la qorayo ma garanayo, caadiyan waxaa loo qoraa cawaj upside down
oo marka hadda markaad garaafkan aad eegeysaan waa lixdii xarig ee gitaarka marka luqunta laga eegayo. xarigga ugu hooseeya waa xariggii ugu sarreeyay ee gitaarka. caadiyan waxaa lagu tuungareeyaa e, laakiin xarafkan hadda halkana loogu soo qoray waa e, waa xarigga labaad ee xagga sare, laakiin garaafkan wuxuu kutusayaa waa xarigga labaad ee xagga hoose, waayo upside down baa loo qoraa. marka xarigga uu furan yahay waa taad arkaysaa xagga sare waxaa kaga qoran e cas. eedaa casi waa marka uu xarigga uu furan yahay oo aan meelna la qaban. marka meelahan kale la qabanayo waxaa la yidhaahdaa fretis afka qalaad, waa meelihii faraha lagu qaban lahaa. markuu xarigga furan yahay waa e. markaad hogga koowaad ka qabato wuxuu noqonayaa e sharp, waayo eedii waxaa ku xiga e sharp, oo eedii iyo bdii e sharp baa udhaxaysa, ama b falaad haddaad doontana b falaad waad oran kartaa. marka e sharp maxaa kusii xigaya dad garaafkii la socotaan, b baa ku xigaysa. b iyo c waxba uma dhexeeyaan, waa c, kadibna waa c sharp, waa d sharp, e. waa marka gitaarka wax laga eego arkan xuruufta isku sii xigta idinkaba raaca. xarigga hadda muuqan xarigga ka hooseeya oo caadiyan xarigga ugu sarreeya ah wuxuu ku tuungaraysan yahay e. isagaba waa tix raaci karaysaan idinkoo isticmaalaya garaafkii aan xagga hore idinku tusay sida xarfaha isugu xigaan. xarigga hadda eeda ka hooseeya waa xarigga ugu sarreeya saan idin lahaa waa e. waxaa ku xiga e, ka kasii hooseeya waxaa lagu tuungareeyaa d, ka kasii hooseeya waxaa lagu tuungareeyaa g, ka kasii hooseeya waxaa lagu tuungareeyaa b. laakiin soomaalida markay cuudka garaacanayso waxay ku tuungareeyaan c. ka kasii hooseeyana waxaa lagu tuungareeyaa e. marka labada xarig ka ugu hooseeya ee ka ugu sarreeya labadaba e baa lagu tuungareeyaa, inkastoo soomaalidu ayado markay cuudka garaacanayso xarigga yari ay ugu tuungareeyaan f. taawa meesha xarfaha kaga jiraan. insha allah hadduu ilaahay yidhaahdo bal waxaan isku dayi doonaa inaan idinka tuso keyboardka meeshay xuruufahani ay ku dhacayaan. gitaarna insha allah waan idinku tusi doonaa. marka cashirka xiga intayna ku kulmi doono khayr baan idinkaga sii tegayaa. sidaa iyo nabadgelyo.